Jaamacadda Gaalkacyo University ee magaalada Gaalkacyo ayaa daah furtay Todobaadka Dhaqanka ee Jaamacadda Gaalkacyo kaasi oo socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana ka qayb gali doona hal abuurada daada yar ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudo iyagoo halkaasi ku soo bandhigaya hal abuurada ay leeyihiin dhalinyaradaasi waa kuwana qaar kamid ah hal abuurada oo lagu casuumay Todobaadka Dhaqanka ee Jaamacadda Gaalkacyo oo soo bandhigay waxaana ana ka sheekeeyo geela oo la yaqaan marka bariga Soomaaliyeed si ay geelaya ayagu isku ciil qabeen haddaan ka soo bilaabo geela iyo tarankiis iyo markii macnaha waxa weeye laba dhadig iyo lab ay isku tagaan ayaa wax tarman Soomaa markii loo baahan yahay in hasha oo ratiga loo hayo ayaa waxa la yahay hashaas waxa la yahay abastax baa la yahay markii hasha ilmaha qaadan waxa la yahay hashaas goojo ayaa la goojo harta xeedu caadi ma mid la yaa dabageel maray horta in soo wada heeda bageel maray heeda ku dhaadhacay heeda doobano ari heeda dhexda oga jir macnaha waxa weey geel haduu 6 saac lugeeyo arigu lama dhex uga sii jiraya ma gaaro geel meel u maro ninka xataa ceeriya qaba karin intaas waan hayay laakiin maanta waxaan helay meel aan ku soo bandhigo jaamacaddeedan way ugu dhiirigelis waan ku faraxsanahay maanta inaan maanta soo istaago meeshan waxaan rajaynayaa inaan intaan in ka badan sameeyo wadanka gaar ahaan meeshan inaan ku ekeenin dadaalka aan intaan meeshan keenay wadanka qof walba muwaadin walba oo Soomaaliyeed inuu ku dhaqdo dharkiisa ayaan rajaynayaa dhanka kale waxa ka qayb galay Todobaadka Dhaqanka Jaamacadda Gaalkacyo University duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre wasiir ka tirsan Galmudug iyo ardayda dhigata Jaamacadda Gaalkacyo ugu horeen waxa goobta ka hadlay isku duwaa waxbarashada gobolka Mudo Axmed Qodeeye oo sheegay in loo baahnaa in la soo bandhigo dhaqanka ay Soomaalidu lahayd guddoonka jaamacadda isku dubaradayaasha kooxda hidaha iyo dhaqanka ardada dhammaan ka soo qayb galayaasha madaxda kale abwaanada halabuurada iyo macallimiinta iyo dhammaan inta ka baad waxa u mahad celinayaa Todobaadka Dhaqanka ee jaamacaddu soo bandhigtay waxa leena aad iyo aad ayaa u mahadsantiin iyo hablo abuurayaashii oo halkan isku yimid wiilkii yarkaha oo ma sha Allah magaciisa muxuu ahaa hidaaya dhaqanka soo bandhigay oo aad baan ugu mahad celinaynaa ninkaas jaamacaddana waa u mahad celinaynaa sida uga qayb qaadatay arintiisa oo u maamustay waa foonfoor hadeer uu qalin jabinaya al-shacab weeye marka jaamacadiisana waa la ballan qaado waxaan rabaa qolo kasto hadasha inay wax ku soo siyaado bishaaro hadii ilaahay idmo waa ardada mar dhow dhameynaysa iyaduna dugsiga hoose dhexe albadar waxaan u sheegayaa wasaaradda waxbarashada oo ka wakiila ilaa foonfoorkeeda ilaa jaamacadda 8 sano dambe wasaaradda waxbarashada ballan qaado dilaan ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray wasiir dawlaha waxbarashada Galmudug Burhaan Warsame oo u mahad celiyay Jaamacadda Gaalkacyo oo soo bandhigtay dhaqanka Soomaalida sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabada tan dhaqanka usbuuca dhaqanka iyo halabuurka Jaamacadda Gaalkacyo waa arin weyn oo lagu faani karo waxaan u mahad celinayaa marka koobaad jaamacadda soo qaabqaabisay iyo ardadii iyo hawlwadeennadii hawshan ka shaqeeyay isku soo dabriday waxaan kaloo mahad celinayaa hal abuuradayaashii meesha wax ku soo bandhigay haday yihiin kuwii farshaxanka soo bandhigay oo aad iyo aad qaali u ahaa oo kamid ahaa ninkii yarka oo madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha dawladda Galmudug sawirada soo bandhigay gabadhii yarada bishaaro dhammaan intii gabay iyo suugaaniya gabdhaha ay kamid ahaayeen oo gabdhaha maanta ay gabayeen halkay ka baraaburu jireen runtii waxaan inta u mahad celinayaa juhdi iyo shaqo iyo waqti ay bixiyeen oo aan isleeyahay dhamaanteen way nagu filan tahay caawid way nagu filan tahay 10 iyo 10 way nagu filan tahay suugaanta aan dhageysanay iyo hal abuurkii iyo niyadda dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada siday u fakarayaan inay ka duwan tahay dhowr iyo 10 sano ka hor siday u fakarayeen marka dadkaas aad baa u hambalyeynaya Maxamed Muxidiin saxan soo xog Galmudug TV Gaalkacyo